العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ولا ينقص هذا المرحلة في محاضرة الشيخ محمد إدريس. حتى أنا وحنروك أقول جلد الله محاضرة وحنقص هنا الشيخ محمد إدريس حفظه الله ورعاه سفر إلى ماشي في ونريد شيخ فضل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى يا نظم هذا إياه كلن كان كدعي مسجد النور مقالة كاسل إننا هاي أنا ولا لا عليك والله وحنوك يكيني عليك أنت هذا الحمل يا رسول الله تبص مالك كركون قاعد دياردي بكتير وين ما نيجي كوريس فكان دياردي كتير ودي أنت يوف يا إلى وقص والحكي وصوتها ومضى dadkaaga ma la kulan karo shacabkaaga ma la kulan qabaa'ilkan shucunaya ma la kulan ma tiri war heshiiya idinka haddaa wax noqotaan ban anigu madaxweyne dhab ah noqon kara madaxweyne dhab ah ma noqon kartid dadkaagu haddaanay kaa dhigin hogaamiye ma noqon kartid dadkaagu haddaanay kaa dhigin hadal iyo sharaf ma yeelan kartid dad haddaanay kaa dambayn haddaan dad kaa dambayn ku taageersan oo kula socda ma noqon kartid nin sharaf madaxda kale ula kulmi kara isagoo isku kalso Erdogan ma arkaysa Turkiya ma arkaysa maxaa Turkiya ku qaatay hal su'aal la weydiiyey Professor Daoud Oglo Jazeera ma ay muqaabala leeyahay maxay Erdogan dadku ku jeclaadeen maxaase sabab u ah inuu waxaasoo dhan oo ijaazada uu qabto muddo 12 sano su-aashaas wariyo hal su-aal ku jawaab hal jawaab maaha tuug maanu ahayn saas darteed bu waxaa ku sax mateena sama tuug maaha min xoolihii dalka ayaa yaalla waxaa lagu qabto marka walaaya inagu isma weydiyo marka doctor mahatir kitaabka soo akrin kartaan dadkiina dhalinyarada aqoonyahanada ah ama siyaasadda daayanahay u malayn maayo siyaasiyiinta soomaaliya kuwa hadda ugu ordaya intooda badan inay akrinayaan ama ay ka faa'iidaysanayaan laakiin waxaan maqlay madaxweynaha Rwanda maray Sunday Times journaalka la yiraahdo ee London ka soo baxaa uu wax ka qorayay faalla ka qoray wuxuu yiri wuxuu akhristaa taariikhdii hogaamiyayaashii Asian Tigers la yiraahdo ee Malaysia iyo Singapore iyo Korea iyo South Korea iyo uu akhristaa wayna u eg tahay oo hadda markaan anigu mutaabaceeyo Rwanda wax ka socda ya aad baan u mutaabaceeya intaasoo buugna waan ka akhriyay waxa ka socda waxaa ka mid ah buug ay niman ka qoreen laba saxafi oo ay u bixiyeen Rwanda Incorporation sharikatu Rwanda oo hasdee incorporation u bixiyeen macnaha waxay yiraahdeen madaxweynaha Rwanda waddanka wuxuu u maamulaa sidii corporate company Mercedes Benz oo kale sida loo maamulo u maamulaa faa'iido iyo khasaaro iyo nidaam iyo kala dambeyn aan u maamulay Mercedes Benz saas u gaaraysaa adduunka inay noqoto kambaniyada ugu waaweyn because waa corporate company oo xisaabtamaya oo budget leh oo nidaam leh oo shaqaalihiisa iyo dadkiisa iyo madaxdiisa lala xisaabtamayo isaguna saasuu ministeradiisa iyo shaqaalihiisa u xushaa una shaqeeya saas darteed bay cinwaanku waa cajabay Rwanda Incorporation bay u bixiyeen waa company weyn badan kambaniyada waaweyn adduunka ka mid ah bunnigaas dadka u maamula
shirkan shaqadiisa kasoo bixin waa lugeynaya corruptionkii lagu qabto next day waa soconaya 7:30 ninkaan xafiiskiisa fadhiyin fire way waa ka baxaya shaqa naasu journaalka kusoo marka hareeraha iyagii saasa dadku u shaqaysanaya ma waxaa rabtaan inaan idin niraahno gobol hebel baad madax ka tahay madaxweynaha Puntland madaxweynaha Puntland madaxweynaha Puntland وعد اشتراه وحسنه 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 what you have كابو قرنيا الدون كان أنا وجدنا عندي بنفرم ما تجيني إن ما عندي حرنين ما حد دي شيء هنا ما هنا حين كرر ما الصومالي والله الذي لا إله غيره إلا نقود إذا كرر أو جرى إذا كرر أو مقع إذا كرر لكن الصومالي يقولي أو تركاس نعملتها يدتكيس يوحي إلهيسي يخلق إلهيسي يدتك إلهيسي يدرحمه ugu jiro ayaa dhibaysa dadnimada u lahaan jiray ama xataa markuu dawladda ahaa wax iska daciif ahaaday sharafta u lahaa waa u sheegay walaalaha waxaan ku yidhi halkaan ha u malaynayna inay maanta aniga iigu horreyso Germany maanta iguma horreyso baasaboorka Maraykanka keliyana kuma ahanima waxaa iigu horreysay Germany intiina badani dhalinyarada meesha fadhiya idinkoo aan dhalan ayaa oran jiray Germany baasaboor Soomaaliya إدميسا تاسوي أنا سأسكت شعور النقلين سأسكت دراك النقلين أنا قدر خسر قبل أنا 1985 أقول إن الباسبور في الصومالية فرانكفورت أنت كسر دقي يسوي فيه إسعاد و 1986 إبي يل فيه إسعاد تاي ولين أهيو ولين ما تسيلي لريس أنا في سنة مسوق هذا أنا أشرك ربي أنا قحوتي أماني أنا دعوة كذي أقوي شربان كذا يبغى أنا دوسندورف روبوت إنما أنا عربة ولا أنا مسلمين يجوا عزمين 1986 عن كسر دقي فرانكفورت أنا جيت دقي تريانا وصوما تريانا في سنة سوقات السفارة جرمن كان في سنة سوقات إسبانيا في سنة سوقات المرايح كان في سنة سوقات أفرت في سنة سوقات في مطالعة باسبور Soomaaliya كيبس because وما أنا سؤال مريكا إن أنا قحط كن نقوله إسبانيا إن كن نقوله جرمن إن كن نقوله ترى إنتنا إن كن نقوله ما أنا سؤال ما أنا سؤال مدول بقى أسبوع من جوال لو أسبوع ما كان مركو كل هو ترك يجساس وما عاصو كلها وحكستو عيب أو كتير ولا عيب كتير ظلم لا كتير إيه لا كتير دينهم كتبت وحصلوا معه هنا كتبت لكن مع ذلك هو عم ما دقي دمنا الصومالي اللي يراه صورتها ما واحد لا دقي مقع الصومالي صورتها ما واحد لا دقي إلى أن كنا قلنا صومالي إنما كريه إننا مشان واحد إنه هيك لا هذا إنيس الشيء أنت سوق صدق وكلا بحران واحد مسك مكينيس مسك I'm going to tell you now. نصيحة إني شيء. يلا يدكوا شكين دليري. يلا يدكوا شكين. وحبم مكينيس. أنت سوق ويسا مقابلين. يلا. إلى أن كنا قلنا وحصو مالين ما كير أقبل الماء. من الربه عنوان كلا يمقع كلا إلا يصير. صومالي enough. صومالي مسلمين راي enough. يقول فلان حديثها سنة تأخذ ودعك ثاني كنا قلنا أو محصولس مير حتى أنجونا إنه وحكا قبصنا ودعك كاسر يمالها أجوكتان يبلوك أجنبي أجوكتان شرف حتكون يا نزال مكان قلل أصلك كاسر احترام يقدرين بدون كيس عرضي لاقي شرفتها ومركز ودورنانا magacaagu markaasaa la ilaalinaya oo la ixtiraamayo oo la qadarinaya haddii kale walaalayaal ma suurtagelayso waxaana kugu daliila simbal ka qaado innaga oo hadda 8 milyan oo hektaar oo Soomaali haysana qabadii ku khaayisay ya faw
ayaa laynoo keena run ma tahay misema loo qabiya WFP World Food Program inay kasoo qaado qabadigii u nahay Maraykanku la soo qaado keeno la yiraahdo waxaa lagu caawinayaa ummad Soomaaliyeed oo gaajaysan oo muslimiin oo aad u gaajaysan baa lagu caawinaya iyadoo haysata 8 milyan oo hektar oo fertile ku fikirteen arrinkaas xaggee laga hadlaya xaggee la jooga markaasaa waxaan weli taaganahay reer hebel intee buu qaatay reer hebel waa diiday reer hebel waa qaatay reer hebel 5 xildhibaan buu qaatay reer hebel 4 buu qaatay annaga tuulada nama soo dhaafi kartaan idinka tuulada soo saar wallahi bal car soo dhawow zuuban haystaa oo waxaan haystaa shilkaan haystaa oo waxaan haystaa brown baan haystaa oo kugu garaaci wallahi waxaad kugu dhaca waad arki doontaa baan taaganahay caqligeenu taagan yahay waxaa laynoo soo daadinaa masago caloosha ku shubmayso dadkan dhalinyaradeenina waa kuwan badaha soo jeexa oo nolol raadinaya dalkoodina ka yimi 8 milyan oo hektar ka imaadeen qaabay ugu shaqaystaan iyo qaabay u beertaan ma yaqaan isbarbardhig kala taga iyo wadajirka ku fikiridda maslaxadda iyo ku fikirid la-aan wada shaqaysiga iyo wada shaqaysi la-aan hadalkaas intaan ugu leeyahay waxa waaye Soomaaliya adduunkan kuma noolaan karaan waxna kama noqon karaan dad aan ku fikirin caqli fiyow iyo maskax fiyow oo aan oran qofkan deriskaaga ah dan baa idinka dhexaysa baa ka wada hadla danta idinka dhexaysa aan ku fikiri karin adduunka waxba kuma leh saas darteed baynu ka qatannahay waxna kuma yeelan karo mustaqbalkiisa iyo haddaynu sidaa kusii socono haddaynu laakiin fikir ka duwan keeno oo caqliga iyo diinta isticmaalno xaaladdu waa isbedelaysa insha allahu tacala xaaladdu waa isbedelaysa marka waa inaan diin ahaan ugu fikirnaa dan ahaanna ugu fikirnaa dadka madax aan ka dhiganayn dadka aan u tacasubayn dadka aan qabiil ka dhigano reer ahaan aan ugu tacasubayn kuwa aan colaadinayno oo aan iska reebayno layna gelinayo colaadooda aan ugu shirnahay arrimahaas waa inay isbedelaan Soomaali cusub waa in la helaa Soomaali cusub waa in la helaa oo qalbiga zamzam looga mayro qalbiga laga dhaqo waa in la helaa ama dadkeena colaada la geliyey oo lagu abuuray oo laysu geliyey colaada si loo qabsado waxba lama qaybsan karayno adduunka waxba yeelan karayno annagoo nicmadii ku raran ayaan ka gaajaysnaanayna maalin walba waxaan noqonaynaa annagu xaabo lagu shito dadka oo maalinba mid lagu shito maalinba qolo lagu shidato biismi qabiilkeennii wey biismi gobolkeennii wey biismi reerkeennii wey inuu dantiisa annaga xaabo ahaan noogu shito ya hadhowna nagu gudbo mid walba oo tacbaan ah oo wax u yahay dad iyo dad aan ka fikiryahaynba wuu nagu shitaa wuu nagu gudbaa hadhowada xanuunasa intaasoo daalad buu leeyahay intaasoo baarkii buu leeyahay intaasoo heer buu leeyahay maxay uga soo bixi la-yihiin dad la yiraahdo waxaasay ummadooda u qabteen maxay uga soo bixi la-yihiin dad la yiraahdo geesinimay waxaas iyo waxaas ku samey maxay uga soo bixi la-yihiin dad la yiraahdo dantiibay ka kulmeen maxay uga soo bixi la-yihiin su-aalaha ma weydiino miyaa inaga idinku qabaa'ilkiina iyo madaxdiina ma weydiisaan miyaa qabiiladiina waa idinka intaasoo qabiil isu kala qaybinaayo ma weydiisaan miyaa ma tiraahdaan miyaa ninkaan idin madaxa war maxaad qabatay noo sheeg dadkan dhinacayaga colaada baa isu kaa gelisay maa noo sheegto maslaxa naga dhexayse dan baanu tijaara naga dhexaysa humbar baanu naga dhexay waxbaa naga dhexeeya bal noo sheeg waxa aad balaan ka leedahay maxaad qabatay noo sheeg mikrofon baa soo istaagaysaa hadaad been cilo ah nacabsiinaysa annaga oo nagu shidanaysa xaabo naga dhiganaysa ma weydiisaan maya nin hebel maanta madaxa خلاص انتهى كوفي بس جلجل عودا جلجل عودا في جلجل كي أنا أحب وزيرة
وزير بحكم ترى ودي دم فوريو محكو غلط ما هو يدرس المياه حاي قوة كتب ماشي يدف I don't care وحطها يا ماشي كتب حق وطيارة معنا هدو مساجد فكرة dadku saasay wax ku qiyaasaan laakiin inaga qiyaaska aan wadano wareegay reer hebel ma yahay bas igaga filan inaas waxa weeyu qaban waxa dhaco waxa baabi'iyo aniga hay iibsado dalkayga ha iibsado dadkayga ha iibsado hadduu doono waxba yuu qaban waxaas walaalayaal ummad saasay adduunka waxbaa noo qaybsan karta waa inaan isbedelno way dhalinyaro اسبدل عقل جميل قلب يدي كل ما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى صومالي الصبح أي الصبح إنه اسبدل شيء وحسب بدلي أن حتى يعيش كنت tell you now حتى يعيش شيء يا مالين والروح على إنه كرباشي مثل قليته يعني إنه كرباشي هذا عي أنا فكري وين عقلي يلون ويني أو ضغط أنا كلام ويني. هدي بينه هنا يضيع. إن نسبتنا الصومالي الصبح أي صباح يسوع. وأركت الصومالي كله. الصومالي نمو كلية إلك كفلا تاي داتس أم. وحكه الصية مدوني يعني اسمها كويس. That's your limit. wax Soomaalinimo kaya no ma aqbalaya ii sheeg don't tell me ii sheeg ma doonay ay ii faahfaahin Soomaalinimo bas that's enough inta saxdana taalo wax wada qabsan deena shaqada qaadin oo amaanada qaadin oo risaalada qaadin waxaan la qooshayaa meel xun bay naga tuuraysaa meel xun bay naga sii tuuraysaa meel nama hayso maaso kala iibsasho gadasho dullinimo dadkii ugu dullisanaa oo xungureeya because waa reerkiibu ka mid yahay xaggeed u saaraysa adaa u jideeyey adaa yidhi ninkii reerka ahi soo galo halkan ninkaa reerka ahina banaanka istaago ma aadan dhihin ninkii Soomaaliya oo wax qabanaya halkan ha soo galo ninkii kale banaanka istaago ma aadan dhihin adiga doortay saas inuu marka kii iskuulada ku dhacay shaqooyinka ku dhacay adduunka wax ka qabsan kari waayey homeless ka ahaa waan ognahay kulligood wasiiro iyo baaqi iskuula qoray oo idinku aad ka dhigteen oo banaanada waxba qabsan kari waayey wadan aad rabtaan inay hogaan halkan ooday hogaaminaya دكتور مهاتير ما هو حكى أخري وذكرات في سنة ما أخري حويري ما كان برا منستر كقبطي هيا واحد يرسو على سفير الأمريكان رجعوا في روح نكون رتبيا ملحوين الريجن إلى ذكرته إنكستو أو جدول كيسو بيزي very busy هاي أمير لقى يو تايم سأقوله أنا قرني يا لكن ونكون رادين إلى ذكرته واشنطن مربوط على ذنا يا مهاتير وحلي أنا وحيلتها هاي نكان ضجع إنه واحد يقونا يوين هذو يراحوا نعمين مريكا بصوب كل ميت يا وحين ملايين يا طبعا وحسابنا يا ويل إن نكمل هاي one of the leaders of the third world نكمل hogaamiyayaasha caalamkan saddexaad ee haddii la yidhahdo Washington baa lagaga yaaray isagoo dhan ba kala duldulanaya diyaarad maahin kabad aan ku fuli diyaarad kuweena ma kula tahay caawa haddii la oran lahaa heblow Washington baa lagaga yaaray kabad aan inuu ku fuli lahaa mashakil baa kaaga jira kabad aan kuween ayuu ku fuli lahaa marka saasuu u malaynayaa uu fikirayay baan u malaynayaa qaab ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiq lana waafajiyo الله سبحانه وتعالى وحبرينا ومضى مسلم كاهن بني ولا يوم حارس لا حبرينا ومضى مسلم كاهن بني لا يوم حارس إلهي قلوبته المذية سا قلوبته المذية كلا إلهي قلوبته المذية إلهي سبحانه وتعالى من هو السلام من هو الإسلام من هو إلهي سبحانه وتعالى
caqligii hadda waa maqan yahay ama waa hurdaayay ilahay inuu caqliga uu soo celiyo wuu hurdaa ama waa maqan yahay sida xadiisku uu sheegay ilahay caqliga hanuu soo celiyo caqli saliima allah noo soo celiyo qalbi saliimana allah na siiyo qalbi dadka soomaaliyeed oo dhan oo muslimka oo dhan ay geli karaan allah na siiyo ilaahay subxana wataala qulubteena ha caafiyo qulubteena ha caafiyo ilaahay subxana wataala kuwa iscaafiya oo isu sabra oo isu dulqaata oo iscaafiya allah naga dhigo ilaahayna subxana wataala kuwa maslaxadooda addunya aakhira ka fikira allah naga dhigo kuwa ilaahay hilmaansiiyey maslaxadooda ilaahay nagama daro ilaahay naguma daro aladiina nasu llaha fa ansaahum anfusahum ilaahay nagama dhigo naftooda la hilmaansiiyey iyo maslaxadooda ilaahay nagama dhigo ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiqiisa hana waafajiyo ummadda muslimkaa guud ahaan meel kastay joogto dhibka allah ka dulqaado ummadda muslimkaa dhibka allah ka dulqaado wadamadooda barwaaqa allah uga dhigo madax wanaagsan oo khayrkii iimaanka iyo daacadnimo ku hogaamisa allah u soo saaro ilahi subxana wataala dad muslim oo daacadnimo ku hogaamiya allah u soo saaro hogaamiyayaal khayr qaba oo diinta iyo kitaabka iyo sunnada ku hogaamiya allah u soo saaro daacada oo muslim oo daacadnimo ku hogaamiya allah u soo saaro ilaahi subxaana watacaala maslaxadooda diintooda iyo dalkooda allah garansiiyo ilaahina subxana watacaala qanaacaha nagu siiyo dhulalkeena iyo dadkeena iyo ummadeena qanaaca allah nagu siiyo ilaahay dalkeena barwaaqo iyo nabadgelyo allah nooga dhigo annagoo nabadana allah nagu celiyo shataadkeena kala tageenana allah isu soo celiyo ilaahay subxaana watacaala ha isugu soo keen celiyo annagoo nabada allah isugu soo keen celiyo bishaarooyin degdegana allah naga tuso sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi jazakum allahu khayran